xalay haweenkii UEFA Champions League ay ahayd kooxooyinka Champions League ciyaaray oo dhan taageerayaashooda way soo jeedeen dhalooyinka la isku dagaalay xalay nin walba wuxuu leeyahay ani kooxdeeda la daawanaa maadaama kulamada intooda dhan hal mar wada galeen hadda kulamadii oo dhan waxaa la soo wada fasaxay 5 saac marka nin Real uu taageeraa nin Man City uu taageeraa nin Barcelona uu taageeraa nin Arsenal uu taageeraa mid Chelsea uu taageeraa mid Bayern Munich uu taageeraa mid Internationality uu taageeraa mid kooxooyinka dhan saas mid Tottenham uu taageeraa marka guri kastan hal dhala ku jirta xalay si loo heshiiyay waa la waa dadka qaar iyagoo careysan teleefankooda ka daarteen ciyaaraha oo teleefano ka daawanaa oo dhalada markii samiicada la dheereeyay dhahay naga gaabi samiicad marka xalay ciyaaraha ka dhacay Manchester City way raaxaysatay walow Real Madrid tan ku dhacday Real see rabtaa Real xalay waraaboga ku dhacay ilmihii inay tabar u waayeen ay iska qaban waayeen Real waxay bilowday kii socdo bu ku istaag oo ilmihii dhameys oo wada red card aruursadeen oo 4 iyo 2 lagu garaacay Real 4 daqiiqo ciyaarta markay socotay iyada gool daa furtay in laga keenaa loo saari Mbemba ka keeni war Mbemba dagaaliyahan waa Real halkan ciyaariyana meesha ku dhintay Mbemba dagaaliyahan waa xalay waa laga dhalina markii dambe uu isdhiibay ani bes waayo dhaa inta ku ekaa labadaas gool ay ugu dhex jirtay koobde wax kale reedsad yaa wax kale keena Real afka ciid loo dari Barcelona taageerayaasha Barcelona indhay taageen markii la baasinay 2 daqiiqo dhub looga sii Barcelona way yaabtay 2 daqiiqo iyo gool si ahaanas dhay anagoo dhan taagana gal Barcelona caaw idin ma loo qabeyn rabaa amal ciyaarta mar ay socotay mar kaambi dambe markii la soo laabtay hal ibrahim xitaa kaambi loo kala wareeyay war Barcelona xalay iyada loo baqay Barcelona xalay ilmaha fafakaday aayeen waa la joojin waa laakiin maxaa ka rabtaa Robert Lewandowski Rafinha Yamal ragii oo dhan goolashay daadadka uga dhigeen ilmihii halka gool ku hormareen aaba 4 looga bedelay ani koox saasa ka rabaa koox waxaa ka rabaa madax fudeedkaas inay lahaataan rabaa ani gool kasta ka dhali laakiin way ka imaan kartaa koox markay dagaal diyaar u tahay oo madax fudeed u socod dad meeshan ilmo yar oo ay ka imaan waayeen PSG ay sheegin iyadan ay sheegin wax ay tahay malaha PSG sanadkii hore Champions League ku wax kaleynaysa ma ahan tan waa dad iska wada xuduuda Arsenal xalay way raaxaysatay iyadan Arsenal xalay haweenkeeda ahayd Arsenal xalay ciyaarta kaambi hore dhameysay kaambi hore aaba dhamaatay ciyaarta 4 daqiiqo markay mareysay oo ugu shubay Victor Gyökeres nin wuxuu waay gool ma dhalinay dibin waa dhihi kartaa Gyökeres taariikhdiisa ka hadlays waa weeraryahanka ugu fiican waqtigan Arsenal ma aaminaysid Gyökeres 14 game ugu dambeysay oo UEFA Champions League ciyaaray 10 gool u dhalay 10 gool u sii kooxdiis 10 gool u sii Gyökeres kor orod ma ahan laakiin dhibaatada Arsenal waa la arkay halay Arsenal waxay ku soo gashay saf labaad ay ku soo gashay xitaa hal ciyaariyaan oo leen afka Arsenal ma ku jirin Gyökeres marka laga reebo hal Gyökeres lagu jiray kooxda Arsenal oo Manchester United ku soo wareertay dhamaanteedaba naga fadhiista Allah naalad baa idin dhashay meel u socotin koox meel u socota matiin naga fadhiista Allah 11kii ku soo wareereen kulankii United safka koowaad ciyaaray waa la wada fadhiisay xalay jabhad cusub meesha soo gashay jabhad cusub soo gashay dhaxdii asli ciyaaray Christian Norgate waraa ninkan war Christian Norgate nin haysto oo keed kulan kasta ku haya ka waran waa jakatoor caadi odaygan maqaarkay int saas garoonkii oo dhan baa saas lagu yeelay aragtida fog asoo say taagan wuxuu siinaa ninka oo garbaha ka dhuumanaya ama goosha kala u sii ordayo u dhigaa war ninka la yiraahdo Christian Norgate waa wax kale kan laacibnimo woo dhaaf ninkii Eze aha Arteta wuu habaarin Arteta nin habaarin inuu yahay ani hala arkay
إذا لهست مقارك في العونيدة أرسنال كوبد سي ugu raaxaysanaysa qof walba ciyaarta daawanay Ize indhaha kama qaadeen asa Ize kulanka sakeed dhigay oo 8 kulan Ize keed dhigtay dheelsinay ninkan la yiraahdo Martin Odegaard lagu qolo xalay Arsenal haddii gool dhaliyaasheeda ay isku aadin yihiin Arsenal 10 iyo ka badan ay dhalin lahayd laakiin Martinelli iyo Yogris goolisha saasay ugu qabaysteen walow ay hal gool dhaliyeen labadooda Yogris iyo Martinelli goolisha saasay ugu qabaysteen ninkan kal Allah war Arsenal weerariyaan way haysataa laakiin Arteta ma arka oo Arteta yaa tusaa Nuno Madueke waa Messi aadiya unstoppable player waa lama joojin karo kubadda hadduu hal mar qabsado hal mar gadaal ma fiirinayo intay goosh iga jirtaa u taagan yahay isku imaada kulligiin dhammaantiin isku imaada horteeda soo istaaga walaa inaan laabanayno u taagan yahay saas Benoni saas ugu soo wadaa 4 iyo 3 5 qurac lagama dhigan karo xalay goolasha meesha ka dhashay oo dhan asaa ka soo shaqeeyay gool ma dhalina way dhigi kartaa wax xarabtade laakiin garoonkaas ninka goolasha xalay dhashay iyo kuwa lagu qabaystay oo la cunay ninka ka soo shaqeeyay oo xamaali ka ahaa waa ninkan hal mar weeriyaan aan ka jeesanayn kubadda hadduu arka saan kugu soo kilkilay ka waran ahadkii Bukayo Saka ahaa madoowe ninkaas iga fadhiyo ninkaas meel uma socdo Bukayo Saka meel uma socdo Bukayo Saka iyo Martin Odegaard xalay waa laga nastay labadooda Kai Havertz wala ciyaaryahanaa soo laabtay Kai Havertz aragtida fog dhaxka tur dhaxda leelay wali xalay baasaska saas alaabta Jorginho iyagoo taraarax aan la arkayna hoos lay ka socotaa garabka lay ka socotaa Kai Havertz iyo Ize ay isqabsadeen xalay dhaxdaas Christian Norgate gadaal u xirtay asigana bareelo aadiyo dhigtay inta ma la soo galaa Arsenal shaxdan xalay ku dheeshay Benoni Arsenal oo saxdo ay soo xasuus oo lagu raaxaysanayo oo nafiska lahaa kubaddan oo Odegaard iyo Bukayo Saka oo maanta oo dhan gadaal la ciyaaray waa kana sani xalay raggaas yaa la ugu soo celin Benoni macaankiis ciyaar aan laga dhirgeyn xamaasad leh aadaw laakiin maxay kaaga taalahay Arteta igaarkiisa la soo orday ciyaartii oo 3-1 igaarkiisa la soo orday oo Arsenal iska raaxaysanaysa Martin Odegaard la'aantiis Arteta ma ahaan karo kabtanu bi ugu soo xiray ninkii garoonka soo dhex istaajay Arsenal kubad oo dhan markay ugu dambeysay Kai Havertz inuu bixi oo Odegaard ii keenay Odegaard Benoni dadkii saasay u baastamayaan Benoni asal siin attacking midfielder waa number 10 ku taagan yahay garabkan hadii ka imaado kubadda asi in lagu xiro asi qiibiyaal rabaa asi markii lagu soo xiro back ball goolahayo uu celina ama daafac Arsenal gool laga keenay oo 3 gool aaba goolka laga sii keenay iyadoo gacan ku gambada ciyaartii dhamaad warninkaan Arteta ma arkamaya Arteta Odegaard shaxdan ka saar ilaahay ma leedahay gaala tahay oo gaal faa'iido ma lahayn warninkan shaxdan ooga saar wala tantii ashaqal aan ku noqon lahayd waay oo baagamoondnimo ku soo bixi lahayd shiidka arkay wallah hadii Odegaard ilaa hadda ina Benoni dheeshiis ku indhacadahay wallahi shiidka ku soo baxay shaqal aan isku diyaari ninkan Arsenal Bukayo Saka Odegaard shaxdeeda ha laga cun Bukayo lagu sheegay muxuu yahay 11 gool la soo dhaafay wax gool ah uma dhalin Arsenal assist ha sheegin sanadkan oo dhan 3 gool miya waxaas u dhali oo Arsenal u dhali waaba ninka oo kulan kastana ciyaara assist ha sheegin 2 gool miya uu caabi kooxda oo dhan sanadkan waxa siiyay 5 gool miya mise 6 gool uu siiyay total waxay leedahay ninkana Premier League wax ka keenay kana Champions League ku qaaday xitaa kubadiisa lagu maraaxaysta Benoni uu soo xaday uu qabana uu li istaagay xasid waxay tama baasa ninkaas la ii keenin kaasi Odegaard shaxda laga saar kaasi Odegaard shaxda Arsenal hadii laga saar Nuno Madueke line upkiisa iyo Ize line upkooda la siiyo Arsenal Champions League iyo Premier League sanadkan iyada ku guuleysanaysa cid la weydiinay ma laha marka aad baad u mahadsantiin saaxiibadeyda muuqaalkan meel fog gaarsiiya ee fikirkaada ku aadan Bukayo Saka Odegaard in keed la dhigana nala wadaag ee qaybta comment